xagga qasa aynu ka hormarno gudaha Israa'iil su'aalo adag ayaa la isweydiinayaa 2 sano oo dagaalku ku sii dhow yahay xogaga iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa mar kale maanta gantaalo waxay ka soo tuureen marayka Gaza gantaalada ayaa waxa lagu soo waramayaa in la beegsaday goobaha duleedka marayka Gaza ku yaala ee Israa'iiliinta xoogga lagu dajiyay dhulka Falastiiniyiinta waxaana la isweydiinayaa ciidanku maxay ka qabanayaan gudaha Gaza sidee wali ciidanka Israa'iil oo ku andacoonaya 70% inay gacanta ku hayaan marayka Gaza gantaal ay uga soo dhacayaan arrintan haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa waxa uu baahiyay in guutooyinka Saraya Al-Qudus ay sheegeen in ay beegsadeen deegaanka la yiraahdo Natifot oo ku dhow marayka Gaza Saraya Al-Qudus waxa ay sheegeen in 2 gantaal ay ku weerareen goobtaasi tani oo jawaab u ah sida ay sheegeen dambiyada guumaysiga ee ka dhanka dadka Falastiiniyiinta militariga Israa'iil waxa ay qirteen weerarkan laakiin waxay ku andacoodeen in laga hortagay Siiriga diinta ka bixiya gantaalada ayaa laga maqlay deegaanka Natifot iyo waliba aagaga ku dhow marayka Gaza ee Israa'iiliinta la dajiyay militariga Israa'iil ayaa waxa aysan bixin faahfaahin dheeraad ah oo arintani la xiriirta war kale oo arrimaha dagaalka la xiriira wargeyska iyo dicoo taxranood ayaa waxa uu gordhaweyta baahiyay in guriga abadulaha ciidanka Israa'iil iyaal Zamir lagu dhawaaqay in goobtaasi ay tahay goob ciidan oo xiran arrintan lama faahfaahin laakiin waxa loo fasiranayaa barnaamijyada ka aloosan gudaha Israa'iil oo inta badan beegsada goobaha ay degan yihiin wasiirada xafiiska ra'iisul wasaaraha ama guriga ra'iisul wasaaraha iyo waliba taliyaasha ciidamada arrintan ayaa waxa la sheegayaa in ay tahay arrin si weyn hadal hayn uga dhalisay gudaha Israa'iil وتاهي wararkii ugu dambeeyay ee xagga Gaza aynu jaleecno ila wareedyo ku sugan isbitaalada Gaza ayaa waxay xaqiijiyeen in ilaa 17 Falastiiniyiin ah lagu dilay weerarada iyo duqeymaha ciidanka Israa'iil tan iyo waa barigii maanta dadkaasi oo ay ku jiraan ilaa 15 qof oo ku sugnaa gudaha magaalada Gaza iyadoo oo wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza ay shaacisay maanta geerida 5 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ah oo 24 saac la soo dhaafay ay u geeriyoodeen sabab la xiriira macaluul iyo nafaqo darro baahsan oo halkaasi ka jirta waxaana tirada dadka macaluushu ay dishay ilaa hadda gaadhay 387 qof oo ay ku jiraan 138 caruur ah isla wararka Gaza wafdi sare oo ka tirsan Xamaas ayaa waxay soo afjareen booqasho ay ku tagayeen Masar qaybna ka ahayd dadaalada socda ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka Gaza iyo uga jawaabida falalka sii kordhaya Israa'iil ee daanta galbeed iyo Qudus ka socda wafdiga uu hogaaminayay Sahir Jabariin kuna inuu ku jireen ama kamid ahaayeen xubno sare oo ay kamid yihiin Xusaan Badraan Kamal Abu Awn Qazi Hamad iyo sidoo kale Maxamuud Madrawi ayaa kulamo kula qaatay Qaahira kooxaha Falastiiniyiinta bulshada rayidka ah iyo ganacsato kale Xamaas ayaa waxay sheegtay in wadahadaladu ay diiradda saareen xoojinta wada tashiga horumarinta tallaabo midaysan iyo dejinta qariidad wada qaran ah kooxdu waxay carabka ku adkeysay in muhiimadda kooxaha Falastiiniyiinta ay tahay faraha lagu soo afjari karo dagaalka iyo midka lagu ilaalinayo adkaysiga iyadoo oo la wajahayo howlgallada ciidan ee Israa'iil oo ay ku jiraan waxa ay ku tilmaameen qorshayaasha lagu doonayo in dib loogu qabsado magaalada Gaza warkan ay soo socon doonaan war degdeg ah ayaa hadda soo dhacaya militariga Israa'iil ayaa waxa ay sheegayaan inay ka war heleen 3 diyaaradaha droonka oo laga soo tuuray dhanka Yemen oo Israa'iil ku soo wajahan isla intaynu hadda warkan ku jiray waxa la sheegayaa garoonka diyaaradaha ee Ramon oo ciidanka Israa'iil saldhig militari ay ku leeyihiin in la sheegayo in meel ku dhow sidoo loo dhigay mid ka mid ah diyaaradahaasi ay ku soo dhacday xuutigu wari kama hadlin arrintan bacdama arrintu ay tahay arrin degdeg ah dabcan waxa soo hadli doona sida caadiyan looga bartay afayeenka ciidamada xuutiyiinta General Yahya Sariic wixii arrintaas ka yiraahdo iyo wixii warar arrintan ku soo kornana barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii aan la idmo xagga qasa aynu ku soconno wararka waxaa soo baxay maanta war aad u weyn warkan waxaa lagu sheegayaa in Xamaas digni lagu siiyay haddii la dilo maxaabiista Israa'iiliinta lagu haysta marayka Gaza in la beegsan doono mas'uuliyiinta ururka Xamaas ee dibadda ku sugan dabcan Qatar iyo waliba Turkiga Algeria Masar ayaa waxa jooga iyo Tunisia sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan ururka Xamaas kuwaasi oo halkaasi masaafurus u jooga haddaba aynu eegno warbixin arrintan ku aadan
oo warbaahinta Israa'iil ay qorayso saacadihii la soo dhaafay wargeyska Israa'iil Hayom ayaa waxa uu sheegayaa in dhexdhexaadiyaasha Mareykanku ay uga digeen Xamaas in haddii la dilo maxaabiista Israa'iil ee ku sugan Gaza hogaamiyaasha Xamaas ee dibadda ay wajihi doonaan khatar dil ah oo qorshaysan oo weliba degdeg ah wararka ayaa waxay sheegayaan in Mareykanku sidoo kale uu ku adkaystay in Xamaas ay bixiso wasi hadalka loo dhigay xog cusub oo ku saabsan xaaladda maxaabiista isla markaasna la siiyo cunto iyo gargaar caafimaad Mareykanka ayaa cadeeyay inaysan ka hor istaagi doonin Israa'iil in ay ku sii socoto Gaza raali ahada waa magaalada Gaza iyagoo markaa Mareykanku uu ku adkaysanayo habka kaliya ee dagaalka lagu joojin karo inuu yahay sida hadalku uu yiri heshiis dhammaystiran oo lagu soo celiyo dhammaan maxaabiista isla arrimaha dagaalka madaxa waaxda howlgallada oo soo xigtay raadiyaha ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ciidanka ay isu diyaarinayaan inay galaan magaalada Gaza balse aan la ballan qaadi karin intaasi ay horseedi doonto xalkaba dambeys ah oo lala gaaro xarakada Xamaas haddii loo baahdo waxaan isku diyaarin doonaa dagaal Xamaas lala galo sanado badan oo soo socda ayuu hadalkiisa ku daray waxaana uu sheegay in haddii ciidanka Israa'iil ay gaaraan waxa loo baahan yahay oo ay abuuraan shuruudaha lagu soo afjari karo dagaalka Gaza ciidanku ay sii joogi karaan qaybo kamid ah dhulkaasi waxaana uu carabka ku adkeeyay ninkaasi in ciidanku ay diyaariyeen qorshe ogolaanaya in howlgallada Gaza la joojiyo waqti kasta marka heshiis ay lala gaaro Xamaas dhinaca kalena xukuumadda Israa'iil ayaa waxay go'aansatay in shirka ay maanta gelinka dambe ay yeelan doonaan lagu qabto goob dhulka hoostiisa oo qarsoodi ah sida uu baahiyay telefishinka kanaalka 12aad ee Israa'iil laga leeyahay waa tahay wararkii ku saabsanaa xagga Yemen ayaa warar ka soo kordhay wararkii hadda ku saabsanaa diyaaradihii daroonka ee Xuutiga ay ku soo weerareen gudaha Israa'iil ayaa faahfaahin dheeraad ah ka soo baxaysa waxaa la sheegayaa garoonka diyaaradaha ee Ramon in goobta ay fariistaan rakaabka in diyaaraddu ay ku soo dhacday telefishinka kanaal 14 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa waxa uu tabinayaa in uu jiro qasaare waxaana wararku taasi ay ku darayaan in markaasi halka loo diray ciidamo iyo kooxaha dabdamiska ah faahfaahin dheeraad lagama bixin afayeen u hadlay militariga Israa'iil gaar ahaan ciidamada cirka ayaa waxa uu sheegay in la xiray gabi ahaanba hawada garoonka diyaaradaha ee Ramon warkan wuxuu taasi ku darayaa in sidoo kale seeriga digniinta ka bixiyay in laga maqlay deegaano kala duwan oo ku yaala gobolka Naqaf iyo koonfurta Israa'iil hay'adda warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegaysaa in uu jiro qasaare ka dhashay gobolka Naqab taasi oo la xiriirta weerarkan dhacay warkan waa warar hadda soo dhacay oo degdeg intayna barnaamijka ku jirnay ilaa hadda qasaarahaasi lama sheegin waxa uu yahay 3 diyaaradood oo drone ah ayaa lagu soo waramayaa in ay soo weerareen gudaha Israa'iil wixii waraha ee ku soo kordhay arrimahaasina barnaamijka intayna ku jirno ayaan idin soo gudbin doonaa haddii aan la ilmo wararka Israa'iil iyo dagaalka Gaza intayna ka bixin wargeyska iyo Dacood Taxranood ayaa waxa uu sheegayaa in taliyaha guud ee ciidanka Israa'iil Eyal Zamir uu kula taliyay heerarka siyaasadda in la gaaro heshiis isudaarsi dhanka maxaabiista xitaa haddii uu yahay mid qayb ah wargeysku waxa uu xusay in Zamir uu hoggaanka siyaasadda ka dalbaday faahfaahin ku saabsan waxa laga damacsan yahay mustaqbalka Gaza war kale oo isla arrimahan la xiriira waxa la sheegayaa in Israa'iil ka fakarayso in magaca howlgalka Gideon labo la bedelo wararka qaarkood waxay sheegayaan arrintan in la xiriirto wadaadada Yuhuudda oo soo jeedinaya magacan in la bedelo sababta waxay yiraahdeen dagaalyahanada iska caabinta Falastiiniinta ayaa waxay la baxeen magaca ushi Nabi Muuse calayhi salaam marka waxay yiraahdeen bacdama magacan kale uu yahay dagaalyahan iyo mas dhanka Yuhuudda ay caabidaan in marka sababta howlgalka Falastiiniinta uga magac direen ushi Nabi Muuse ay tahay mucjisada ushaasi ay lahayd marka waxay leeyihiin magacan aan bedelno si marka howlgalka uu soo noqon mid fashilma warbaahinta Israa'iil marka waxay sheegaysaa hadda in laga fakarayo in magacaasi la bedelo wixii ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa arrintan xiisaha leh
isla wararkani hay'adda warbaahinta Israa'iil ayaa waxay ku dhawaaqday samaynta guddi ka socda wasaaradda difaaca iyo tan maaliyadda si loo hagaajiyo daryeelka askarta dhaawacmay iyadoo tiradooduna ay aad u sii kordhayso askarta kusoo waxyeeloobaysa furimaha hore ee jiidaha Gaza. Wargeyska Idaaco Tahranood ayaa soo xiganaya waaxda soo kabashada ee wasaaradda difaaca oo sheegtay in tirada askarta dhaawaca ay la daweynayo ay gaari doonaan 100,000 oo askari marka la gaaro sanada 2028 sida la filayo. Geesta kalena wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Gideon Sar ayaa sheegay in dagaalka Gaza uu bari dhammaan karo haddii la sii daayo maxaabiista oo xarakada Xamaasna ay hubka dhigto. Isagoo intaasi sii raaciyay xasiloonida lala gaari karo Falastiiniyiinta waxay suurtagal tahay oo kaliya is-afgarad labada dhinac dhex mara. Aqoonsiga dowlad Falastiin ah ee ay sameynayaan dalal kale nabad ma soo dhaweyn doonto. وهجاج maraykanku wuxuu ku adkeysanayaa mowqifka ah inuusan aqoonsan doonin dowlad Falastiiniin ah. Safiirka Maraykanka ee Israa'iil Mark Huckabee ayaa waxa uu sheegay in tilaabada Yurub ay ku aqoonsanayso dowlad Falastiiniya ay meesha ka saarayso ama ay jibinayso heshiiskii Oslo ee 1993 dhex maray Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta. Waxa kaloo soo baxaysa Maraykanku inay digniin ka soo saarayaan wararka la xiriira aqoonsigan iyo arrimaha la xiriira dowlad Falastiiniin ah oo la aqoonsado. Macluumaadkaasna wixii ku soo kordhaha waynu arki doonaa. waa hagaag daawadayaal haatan waxaynu soo gaarnay xubinta ugu dambeysay ee barnaamijka oo xubinta falanqaynta taasi aan ku soo qaadano warbixinada iyo xogaha ay bixiyaan khubarada arrimaha militariga kuwa istiraatiijiyadda ciidamada siyaasadda iyo waliba sirdoonka. sidoo kale waxaan ka marnay xubintan oo ku soo qaadanaa kuna qaada dhignaa arrimaha waaweyn kuwaasi oo warbaahinta caalamku ay wax ka qorto amaba ay baahiso. xubinta maanta waxaan ku soo qaadanaynaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si cad u sheegay inuu jiro wada hadal qoto dheer oo ay la leeyihiin Xamaas taasi oo ku aadan sidii loo sii deyn lahaa dhammaan maxaabiista lagu haysto Gaza iyo in dagaalkani la soo afjaro. dhinaca kalena warbaahinta Israa'iil ayaa waxay shaacisay in Xamaas la siiyay digniin haddii ay disho maxaabiista in la qaarujin doono dhammaanba madaxda ururka ee dibadaha ku sugan. digniintaasi oo Mareykanku u gudbiyay dhaqdhaqaaqa reer Falastiin. haddaba warbixin arrimahani ku aadan waxa ay khubaradu ka tiri waxaa soo jeedinaya waryahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh. Israa'iil weli kama jawaabin soo jeedinihii xabajoojinta ee iska caabintu aqbashay toddobaadyadii la soo dhaafay, halka madaxweyne Donald Trump uu weli sii wado hadallada khubaradu ay ku tilmaameen inuu ku doonayo inuu kaga faa'iideysto wada hadallada si uu u gaaro waxa Israa'iil ku guuldarraysatay inay ku gaarto dagaal. Trump ayaa dhawaan sheegay inay socdaan wada hadallo qoto dheer oo la leeyahay Xamaas si hal mar loo sii daayo maxaabiista Israa'iil, isaga oo ka digay xaalad xun oo adag haddii aysan dhicin. wuxuu intaasi ku daray in mudaharaadada Tel Aviv ay Israa'iil geliyeen xaalad adag taasi oo qaray ra'iisul wasaare Netanyahu oo maxkamadda dambiyada caalamiga ah ay raadinayso. Xamaas waxa ay sheegtay in weli ay sugayso jawaabta Israa'iil ee soo jeedinta ay aqbashay ee bishii hore. waxa ay ku eedeysay Netanyahu inuu carqaladaynayo dadaalada dhexdhexaadiyaasha. qabiilka arrimaha Israa'iil Mohamed Mustafa ayaa sheegay in hadallada Trump ay yihiin kuwa aan cadayn oo horey loogu arkay isaga oo ballanqaadyo aan waxba ka dhalan ka sameeyay. Mustafa waxa uu sheegay in arrintaani ay muujinayso saameynta wasiirka istiraatiijiga Israa'iil Ron Derman ku leeyahay Trump, iyadoo Israa'iil aysan gabi ahaanba ka hadlin wada hadallo isla markaasina ay weli ay ku dhagan tahay 5 shuruudood oo ay horey u sheegtay. Trump ma ballan qaadin inuu joojinayo dagaalka, waxa uu sheegay in go'aanka kama dambaysta ah Israa'iil ay leedahay. waxa uu xusay in qodobo Xamaas ay dalbanayso balse uusan faahfaahin, taasi oo muujinaysa inuusan dhab ka ahayn joojinta dagaalka. Thomas Warwick oo horey uga soo shaqeeyay waaxda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in dirista ergeyga Mareykanka Stephen Witkoff iyo kulamadii uu kula yeeshay magaalada Paris ay mas'uuliyiinta qadariga ah ay muujinayso doonista Trump iyo joojinta dagaalka. si kastaba ha ahaatee, Warwick waxa uu tilmaamay in Mareykanka laga yaabo inuu cadaadis saaro Israa'iil si ay u aqbasho heshiis, hase yeeshee weli kama jawaabin soo jeedinta. falanqeeyaha siyaasadda Falastiiniyiinta Ahmed Al-Tanani ayaa sheegay in mushkiladu ay tahay in Mareykanku uu la safan yahay oo uu aaminsan yahay waxa Israa'iil ay rabto, oo ah in la adeegsado diblomaasiyad si loo gaaro yoolal dagaal oo lagu waayo guul. waxa uu ku eedeeyay Netanyahu inuu mar walba jabinayo heshiisyada isla markaasina uu Trump u qaabeeyo mowqifyada isagoo adeegsanaya Ron Dermer. dhanka kale, Thomas Warwick waxa uu ku adkaystay in mushkiladu ay tahay Xamaas oo diidan inay qirato guul darro iyo in ay hub ka dhigto,
isaga oo sheegay in Maraykanka iyo Israa'iil aysan joojin doonin dagaalka haddii aan taasi la gaarinin. Waxa uu intaasi ku daray in dalalka Carabta iyo Yurub aysan doonin in dib ay u dhisaan Gaza haddii Xamaas mar kale ay la wareegi karto oo dagaal ay ka bilaabi karto. Al-Tanani ayaa sheegay in hadallada laga sheegayo ee ah in iska caabinta la burburiyay hubkeedii uusan waxba ka jirnin, isla markaasina reer Gaza waxa kaliya ay haystaan uu yahay hub fudud oo shacabku u adeegsan karaan xitaa haddii loo baahdo mindiyaha cuntada. sidaasi si la mid ah Al-Tanani iyo Mustafa waxa ay ku doodeen in Israa'iil aysan doonayn hubka dhigis balse ay rabto qabsashada Gaza iyo barakacinta dadkeeda iyada oo Maraykankuna uu taageerayo. qabiirka arrimaha militariga Faiz Al-Duwayri ayaa ku raacay isaga oo sheegay in qarxinta dhismayaasha dhaadheer ay qayb ka tahay qorshaha nidaamsan ee lagu barakacinayo dadka dhanka koonfureed. Al-Duwayri waxa uu sheegay in Israa'iil ay doonayso in dadka laga raro Gaza kadibna bartamaha sida Deir al-Balah iyo Khan Younis ilaa koonfurta Rafah halkaasi oo laga hadlayo in laga dhiso 100,000 oo teendho. qabiirku waxa uu intaasi ku daray in iska caabintu aysan ka tanaasuli karin maxaabiista iyo hubka sababtoo ah haddii ay sii daayaan markaasi wax laga wada xaajooda ma jiri karaan mana jirto damaanad lagu kalsoonaan karo oo Israa'iil ay ku ilaalin doonto heshiiska. wuxuu ku jawaabay hadallada Warwick ee ku saabsan guuldarrada Xamaas isaga oo yiri qof guuldaraystay lama galo wada xaajood. waxa uu xusay in Japan iyo Jarmalka aanu wax wada xaajood ah la galinin markii ay ku jabeen dagaalkii labaad ee adduunka isla markaasina Maraykanku uu ka baxay Vietnam, Iraq iyo Afghanistan markii uu halkaasi uu ku guuldaraystay. Al-Duwayri waxa uu falanqayntiisa ku soo gabagabeeyay in inkastoo iska caabintu hub ahaan ay liidato aysan la kulmin guuldarro sababtoo ah si wadida dagaalka ayaa ah halka go'aamisa guul ama guuldarro. Maxamed Cabdiraxmaan HBN